maanta waxaa ka hadli doonaa China iyo USA. yaa awood badan, yaa dhaqaale badan, yaa dad badan, yaa dhul weyn. muuqaalkan ayaad ku daawan doontaa dadka labada dal. China dadkiisa sidaad ogtahay waa dad aad u fara badan, waana 1.44 bilyan, halka Mareykanka dadkiisa ay yihiin 331 milyan. bilyan iyo milyanna waad kala garan kartaa. si aan u bilaabo muuqaalka, like saar kuna soo biir YouTube-kan. yaa lacag badan labadan wadan. lacagta caalamka markii la qiimeynayo dal lacagtiisa markii laga hadlayo laba ayaa loo qaybiyaa: nominal GDP iyo GDP. PPP la socoto. marka waxaan ku bilaabeynaa nominalka. marka waa inaad fahantaa marka hore GDP maxaa laga wadaa. horta GDP waxaa laga soo gaabiyey gross domestic product, oo macnaheedu yahay wadarta wax soo saarka gudaha. Mareykanka ayaa ku awood badan, wuxuuna soo saaray 21 trilyan, halka China ay soo saaraan 14 trilyan. marka halkaas waxaa ku awood badan Mareykanka ayaa ku lacag badan. nooca kale ee qiimeynta caalamka ee loo yaqaano GDP oo ay la socoto BBB. BBS oo saddexda ah maxaa laga wadaa? PPP waxaa laga wadaa purchasing power parity, oo ah sinaanta awoodda wax iibsiga. taa waxaa ku awood badan China, 27 trilyan ayuu halkaa ka haystaa, halka Mareykanka ay haystaan 21 trilyan. tanina waa qiimeyntii ugu dambeysay oo dhanka dhaqaalaha lagu sameeyey. BBB purchasing power parity, sinaanta awoodda wax iibsiga caalamka. labadan dal aad ayay ugu xifaaltamaan xagga ganacsiga, laakiin lacagta la isticmaalo waxaa iska leh Mareykanka oo waa dollar. halka haddii aan ugu gudubno dhanka nuclear-ka, yaa ku awood badan labadan wadan. labadan wadanba way haystaan hubka khatarta badan ee waxalaago ama sunta badan ee lagu magacaabo nuclear. Mareykanka waxay haystaan 600,000 oo nuclear ah ama dhuumaha nuclear-ka ama bambooyinka, halka China ay haystaan 250 ilaa 300. baaxadda dhulka, yaa dhul weyn labadan wadan waa USA iyo China. China dhulkiisa waa 3.7 milyan square, halka dhulka Mareykanka uu yahay 3.8 milyan square. yaa ciidan badan xagga ciidanka, yaase awood badan xagga ciidanka. labadan wadan, dalka China iyo Mareykanka. ciidamada China ee active-ka ah ee diyaarka ah waa 2 milyan iyo ka sii badan, halka kuwa Mareykanka ee diyaarka ay yihiin 1.4 milyan, waana ciidamada militariga loo yaqaano. ciidamo kale oo waxay leeyihiin keed ah. ciidamada China ee militariga ah ee keedka ah waa 500,000 iyo ka sii badan, halka kuwa USA ay yihiin 845,000 oo qaas ah. dhaqaalaha ay ku bixiyaan xagga ciidanka, imise lacag ayay ku bixiyaan? China waxay ku bixisaa dhaqaale gaaraya 180 bilyan ilaa 210 bilyan, halka Mareykanka ama USA ay ku bixiso ciidankeeda 748 bilyan. awoodda dhulka, hubka dhulka, labadooda yaa ku badan, yaa ku awood badan. taangiyada dhammaan labada dal ay haystaan. China waxay haysataa 7,000 iyo dheeraad oo active ah oo taangiye ah, halka Mareykanka ay haystaan 8,000 wax ka badan oo taangiye active ah. noocan kale ay ku dagaalamaan infantry-gana, China waxay haystaan 3,500 iyo dheeraad, halka Mareykanka ay haystaan 6,700 iyo weliba dheeraad. noocan aragtana ee khatarta badan ayagana, China waxay haysataa 4,000 iyo dheeraad, halka ay haysato Mareykanka 13,000 iyo weliba dheeraad. noocan khatarta badan ee blastiga ah ee qaarad gaari karana, China waxay haystaa 1,700 iyo dheeraad, halka Mareykanka ay haystaan 1,400 iyo weliba dheeraad. waa tahay noocana asna waa khatar badan yahay oo diyaaradaha iyo waxaas lagu ridaayo. China waxay haystaa 1,770, halka Mareykanka ay haysato 990 iyo weliba dheeraad.
marka laga hadlayo dhanka hawada ama awoodda diyaaradaha labada dalba waxay haystaan diyaarado khatar badan noocyo kaligood iska soconaya oo aan la wadin oo computerized ah. noocan hadda aan aragto China waxay ka haystaan saddex nooc ayaa lagu tusi doonaa. noocan ugu soo horeyso waa aircraft ayaa la yiraahdaa. China waxay haystaan 4000 ilaa 4500 halka ay nooca dagaalama China ka haysato 1600 iyo 1670 iyo waliba dheeraad. noocan kale helicopterkan waxay ka haystaa waa 1000 xabo iyo waliba dheeraad. Mareykankana waxay haystaan aircraftiga nooca la yiraahdo 14000 iyo waliba dheeraad halka ay kuwa dagaalamay ka haystaan 2850 iyo waliba dheeraad. helicopterkana Mareykanka waxay ka haystaan 5700 iyo waliba dheeraad. muuqaalkan haddii aad ka hesho like saar siina share garee fadlan. diyaaradaha qaaska ah ay haysato China waa noocyadan kala ah G-20, Su-30, MKK, Su-37, Su-35, G-10 iyo G-15 halka Mareykanka ay haystaan F-22, F-35, F-16, F-15 iyo F-18. xagga badda ama dhanka badda ayaa ku awood badan. awoodda badda ee China iyo Mareykanka maraakiib fara badan ayay labada wadan haystaan. halkan ayaana lagu soo bandhigi doonaa. China waxay haystaan markabkan ku muuqdo 700 oo xabo halka Mareykanka noocan ay ka haystaan 500 oo xabo. maraakiibtan diyaaradda ay xambaaran waa tahay noocyadan ayagana diyaaradaha xambaaro China waxay ka haysataa 2 xabo halka Mareykanka ay ka haystaan 11 xabo oo xambaari karo 9 helicopter oo khatar badan oo dagaal u gali karo. muuqaalkan haddii aad ka hesho like saar siina share garee fadlan. waa tahay maraakiibta ay haystaan waxaa kaloo ka mid ah noocan China waxba kama haysato maraakiibka noocaas ku muuqdo waana nooc garoon leh diyaarad ay ku soo duldigi karto. Mareykankana waxay ka haystaan 22 xabo. muuqaalkan haddii aad ka hesho like saar siina share garee fadlan. noocan asagana khatarta badan ee sidoo kale waxa laago dagaaladan lagu galo China waxay ka haystaan 36 xabo halka Mareykanka ay ka haystaan 69 xabo. waayahay kan waxa waa biyaha ayuu dhex jeexaa nuclear-kana waa lagu qaadi karaa. waxay ka haystaan 25 xabo nuclear ah ayuuna qaadi karaa halka Mareykanka ay ka haystaan 70 xabo wuxuuna qaadi karaa nuclear-ka Mareykanka ay haystaan oo idil kala haystaan noocyo casri ah. waxay haystaan noocyadan ku muuqdo Fragates iyo Corvettes. Fragatiska nooca la yiraahdo 52 xabo ay China ka haystaan waa nooc casri ah oo aad u weyn oo dagaal halka nooca kale loo yaqaano Corvettes ee 50 xabo China ka haysato. Mareykankana 19 xabo oo kaliya ay ka haystaan. Corvettes kaasna waa nooc khatar badan oo ku shaqeeya electronic aad ayuuna orod badan yahay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. subscribe saar channelka oo adiga ayaa iska leh kici laagna saar muuqaalkaasi oo dad badan u gaaro.